السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا فرح سنة هي أرضي مستقبل في عن سودي أرينيسا وحبارشو runtii aad bay ii farax gelinaysaa mowduucayga ayaan markiiba hore ka gelaynaa waxa aan rabo inaan maanta idin kala hadlo waxa weeye ardayga aan rabnaa inaan tilmaamno ardayga wanaagsan ee fariidka ah ee wixii la saaray iyo waajibaadkiisii gudanaya waa arday sidee u eg haddii la idin dhiibo qalin oo la yiraahdo qof kasta oo arday fiican waxa uu taqaan qor qof kasta waa qoraya hatta qofka isleh adiga ma ahid qofkaas wuu yaqaanaa waxa ardayga fiican uu yahay qof kasta waa yaqaanaa meelaha la yimaado oo waxbarashadana waxa laga barto ma aha kaliya aqoonta taala laakiin waxa laga bartaa aqoon akhlaaq dhaqan wanaagsan asluub fiican mas'uuliyad wax badan baa laga bartaa marka ardayga intaan oo arday oo ma subax kasta intaasoo macallin ay u soo galayaan waxay tahay in qofkaasi inuu wax badan iska bedelo xisaabi maalin kasta meeqa macallin baa fasalka ku soo gasho wax ku sheegaysa oo wanaagaada ka talinaysa bal usbuuci ku dhufo bal bishii ku dhufo bal sanad ku dhufo intaas qofka wax loo sheegay waxay la tahay qofkaasi inuu asagu wanaagsanaado iska daayay wax badan ka bedeli kara dadka kale waxay la tahay arday kasta oo meeshan dhigta looma sheegayo waxa ugu horeeya inuu yaqaano oo uusan martida ka ahayn in ay tahay diintiisa inuu yaqaano oo uusan marti ka ahayn waxa laga yaabaa qof inuu wax kasta aad u yaqaano laakiin qaybtaas uusan aqoon hadii la yiraahdo wuxuu ka soo baxay dugsi sare laakiin ma yaqaan aad bay ceeb u tahay arday baa waxaan weydiiyay aad u yaqaan maadooyinka baa waxaan weydiiyay marka aad salaada tukanayso waxa aad sheegayso ma taqaanaa ma yiri marka aad quraanka akhrinayso waxaad ilaahay markaas aad sheegayso ma taqaanaa ma yiri maxaa wixii la iska rabay inuu aqoonti laga rabay xagee ka bilaabmay waxaan waa laga tagi doonaa waa la laabi doonaa laakiin qof aan wixiisa aqoonin mas'uul aan ka ahayn dan aan ka lahayn waa dhibaato ardayga marka iskoolada la joogo waxa aad loo qiimeeyaa aqoonta akhlaaqda aan ka bilaawno akhlaaqda dhaqanka wanaagsan qof kasta waa yaqaanaa ardayga marka leeyahay akhlaaq buu leeyahay waxay ku soo ururaysaa ardaygaasi waa qof mas'uul ah qofna aan dulmin dadna aan wax u dhibin waalidkiis iyo macallimiintiisa wax ka maqlo oo ka dambeeya qofka waalidkiis ixtiraama macallimiintiisa ixtiraama dadka walaalihiisa iyo asxaabtiisa ixtiraama qofkii ka weyn ixtiraama qofkaas waxa ka muuqanaysa dhaqanka wanaagsan inuu leeyahay hadii uusan waalidka ama macallinka uusan ixtiraamin hada qolo kale ixtiraami doona hadii arday galaas kamida oo macallinku galaaski intuu laga joogi waayay oo macallinku yiraahdo aamusid oo si xun u hadlo oo macallinku uu yaabo iga fariisay yiraahdo masaasa u hadlaysa ama uu yiraahdo banaanka uga baxa fasalka oo uu la diriro oo maamulka ay yimaadaan oo haddana uu la diriro oo banaanka loo saaro markii dambe markuu meelaha luuqyadan sii marayo buu qolo mobile iyo wax raadinaysa la kulmay markaas la yiri istaag saadab iyo wuxuu istaagay baarinimada ka duwantii haday baarinimada laga rabay waa laga waayay baarinimada istaag waa lagu baarayaa waa yahay tartiib iyo baar ha idilin wuxuu aad u baar isaga dhigayaa haday waa laga waayay hadii aadan ixtiraam siin qof kugu leh waxaad siin doontaa mid aan kugu lahayn adoo dulaysan sax ma tahay adoo aad u dulaysanoo wali waxa lahayd laga qaatay baad siinaysaa qof aan mudnayn
waxay ahayd marka hore waalidkaagii inaad siiso macallinkaaga inaad siiso saaxiibka inaad siiso ixtiraam aad ah qofka hadaa ixtiraamto ku ixtiraamaya hadaa qofka wanaajito ku wanaajinaya xayawaanka caadiga ah hadii wax la siiyo waa ku soo ordaya marka ardayga marka laga hadlayo akhlaaqdiisa waxa ugu horeeya ixtiraamka iyo ixtiraam siinaya waxaan leenahay mid kale annaga dadkii wax bartaan nahay waxaan laga rabaa dadka wax bartay dadka aan wax baran iyaga bedela arday inta dhigto soo dugsi sare soo gaaray wax ila tahay asaga wax bedelaye kuwa aan wax baran ee wali aan wax baran ee dhaqanku ka xun yahay ma aha inay ardayga fiican bedelaan ardayga wanaagsan wax bedela mid iskool ka tagay wax barashadii ka tagay meelaha iska wareegta qof aan waxaas baran kaas miyaan ku dayanaynaa masagaan u ekaanaynaa mase annaga rabnaa isaga bedelno dadka wax barashada ku fashilmay ee meelaha kala taga ma inaan bedelno wax barashada soo gelinay ahayd mase inayna bedelaan oo ayaga aan u ekaano annaga wax bedelna ahayd waxa laga yaabaa in qofkaas uu labisan yahay iyo sida uu timaha u rifrifay iyo sida inaan ku dayano waxa sax ahayd in aniga bedelo ila ana wax bartay qof aan waxba baran soo ii bedelayaani geed wara macna goorma shay kale wax siiya marka aad waxaysato adoo waxaysta wixii laga qaadanaya waxyaalaha akhlaaqda aad u xumeeya waxa kamid ah saaxiibka aan fiicnayn waxa laga yaabaa dariskaaga marna ku diin marna ku dayo marna ka darnow qofkii marka hore waa la yaabaysaa bariyaha hore bismillaah war waxaan soo ahaa ila waa qof xune maalinta kale la soconaysa maalin inba ka go'aysa maalinta waa ka darnaanaysa hadii aan meelaha fiirsano waxa laga yaabaa waxyaalaha dhalinyarada loo soo bandhigay iyo ciyaaraha iyo waxyaalahaas la ciyaaro waa maxamed dhibayso laakiin anigu yaan ku dayanaya qofka musalsalka dhigaya iyo qofka ciyaartooyga maxaan ka qaadanaya ani hadaan ahaan lahaa oo aad dadka fiirsada ahaan lahaa waxaan dhihi lahaa wax looga daydo way leeyihiin maxaa kamid ah wax looga daydo wallahi meesha nidaamkeedu waa qurxan yahay sida ay wax isugu baasayaan isugu dhiibayaan waxaan ka baranayaa iskaashiga marka ay ciyaarayaan buuq ma jiro wax is caanaya ma jiro waa ka qaadanaya annaga saas ma nahay markaan ciyaarayno ciyaartiba ixtiraam iyo ka dhaxaysa dhabti maxaad moodaa midii dhabta ahayd ciyaartiba ixtiraam u baahan ardaygaas yuu ku dayanayaa annaga yaa tibaha noo jara dharka yaa noo geliya kuwa aan wax baran baa kuwa annagu aan ognahay inay wax barashada ku baaba'een miyaan ayaga ma la bedelaya mis annaga wax bedelayna yaa ani dayasho ee ah nin dibadaas joogo oo cadaan oo noloshii ka dhumay oo ama gaala ah miyaa aniga bedelaya mis ana rabo inaan wax bedelo qofku markuu ka fakarayo ardayga wanaagsan mustaqbal fiican leh waxa bedelaya uu yaqaana marka kama ilama ah inay qof aan iyagu waa waxba aqayn in dhaqankaaga ka bedelaan waxaan la yaabaa dadka oo hindida iyo dhaqanka ay wataan si ugu dhagan yihiin baa la yaabaysa kuwa dharka ay qabaan dharkoodii ay wataan qaar dhexda u banaan oo Soomaali dhaqankooda ay wataan anagu maxaa dhaqso isugu bedelnaa markiiba maxaa isu bedelaynaa hada meel ku aragno Facebook ama YouTube iyo ma soo ekaysiina mase waxaan leenahay wala arintan arin bedelaad u baahan weey mase taasa ani markiiba hore ka bedelay bari subax imaanaya ereyga lagu hadlayay isla kiiba dabaqayna arkay wateen say u ekaayeen baan u ekaanayna waxaan u meenaa wax badan baa macallin soo ahaa anigu wali ma arag arday dhaqankiisu aad u xun yahay wax barashadana ku fiican ma jiro haduu jiraan laba bari ahaana waa baaba'aya waxaan soo arkay arday markuu iskoolka soo galayay ardayga koowaad ahaa marka uu ka baxayana ardayga ugu liita ahaa waa soo arkay waxaana bedelay dhaqanka markuu iimaanay iskoolka arday aad u fiican laakiin maalinba waxba ka go'ayay maalintii foonfoorka uu ka baxayay meesha ugu hooseyso gadaal u tagay inta waxa bedelay waa dhaqan xumada
marka ardaygaani waa qof mas'uul ah asaga risaalo wado raba inuu wax bedelo ee maaha mid asaga la bedelayo waxaan soo arkay ardada taran dadaalka xaqiisa ardaygu waa qof mujtahid oo dadaala waxbarashada qola aad leedahay warkaala waxbaro war maxaa ka hadlaysan ardaygan dadaalin marbuu dibinta ruuga waa ayuu iska dayacay buu dib u xusuustaa waray kaala waxbaro oo ka diidan oo waxbarasho aan rabin arday noocaas oo aan aqaana iyo arday kale oo fiican baan labadaas is bardhigaya arday fiican oo aan aqaano wanaagsana oo ka baxay dugsiga sare jaamacad galay haddana master soo qaataan maalin marti qaaday maqaayad baan tagnay maqaayada markii aan tagnay waxa noo yimid qof aad u jajaban oo nin dhalinyaro ah oo aad u dheereynaya oo na soo dhaweeyay sidoo noogu waxa yaalo noogu amaanay waxaan ku siganay inaan dhadhamino cuntada uu sharxay isagu inay noo dhadhanto wanikan soo wax u sharxay markuu iga naga sii socday baan weydiiyay ma taqaan wiilkaana ay waa garanayaa bil waa kii aan isku fasalka ahayn shalay markuu fasalka dhiganayay jajabnow dadkaaga ogolow waxbaro waa lagu kari waay maanta uu maqaayad joogo oo maqaayad ka shaqeynay aad u dheereeya asagoo dhididku ka qabanayo shalay dhibkaas ma qabin kaala waxbaro waalidkiisa oranay kaala waxbaro macalinkiisa dhahay kaala waxbaro qof fiican noqo maya dhaqankiisa waa la tagay maanta waa weynaaday reer buu yeeshay ilmaha ka ooynaya fadhi uma yaalo hadaad maanta aad dadaasho bari waa adigana waxa weeye qof ixtiraam la noqonayso wanaagsan oo la ixtiraamo waa aragteen dadka gaari gacanada wada ee fuustooyinka wada iyo qofka loo wado yaa dheereeya yaa aad u dheereeya ma taqaanaan qofka wada Soomaa qof fuusto culus wada aad u dheereynaya kii kale oo socda dhahay war iisu hayga tagine sababtoo ah damba haysa markaan hadii aan markaan inta joogno aan dadaali weyno hadhow sida fuustada loo riixaa waa ku dadaali doonaa intiina wax jecel ma jira maanta inay waxaad ka shaqeeyaan dantii ku geyn barita inaad ka shaqeyso hadaadan maanta dadaalin meesha ay wax ka bilaabayaan aad dadaalayso waa noloshaada bedel waxa dhigataan biology-ga ku dhigataan jirka bini'aadamka marka hada wadnaha dhiigu jirka u qaybiya laakiin inta uu xibinta ugu horeeyo oo wadnuhu uu siiyo dhiiga waatee wuxuu siiyaa wadnaha intuna wax kala siin wadnuhu quudiya arteriyada halbowlayaasha wadnaha saaran ku xiran coronary arteryadu quudiya markaas kadib wax qaban karaa shayga ugu horeeysa aad qabanayso adiga iska bilow adiga hadaad ay toosnaato waxaaga waxbarashadeeda aan u jeedaa aqoonteeda baan doonanayaa dhaqan wanaagsan baan leeyahay waqtiga ii kala habaysan jadwal waxbarashaan leeyahay arrimahaas oo dhan waxba iga saacidayaan xalay maxay ahayd habeenkii ciyaaraha la fiirsan jiray qolo waxa arkay meel ku fiirsanaysa say u khushuucsan yihiin say u fiirsanayaan waad yaabaysa siday ula dhacsan yihiin salaada saa uma tukadaan sida loo fiirsanayo warhaysay kay aadinin iga wareeg waxa laga yaabaa qaarkiin kuwa kale oo fiirsanaya saan hadaa u fadhidaan gool iyadoo la dhalin rabo mid idinkeeda kamid intuu is ilado laab uu tuuro mid ka horeeyo laad ku dhufto soo ma dhacdo oo ila raalle oo waa jidbooday waxaan la jidbooday ciyaartaas laakiin waxaan rabaa adoo galaaska jooga oo macallinku markuu aad u sharxo inta aad u jidbooto mid ka horeeyo dhabarkiisa aad bug u malayso oo dhabarkiisa raalle oo waxaan kugu qoray waxaan u maleynay waa nin aad u jidbooday waxbarashadii marka maanayada ku jidboon ciyaar ayaa diiday ciyaar ayada iska jidbeysane Soomaha ayada orodkeeda laakiin tii dhabta ahayd hada di meeshaas lagu ciyaarayo oo aad fiirsanaysaan qof meel u fiirinayo ma jiro Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaad ugu faraxsanahay arday mustaqbal fiican isu diyaarinaysa waxbarasho runtii aad bay ii farax gelinaysaa mawduucayga ayaan markiiba hore ka gelaynaa waxa aan rabo inaan maanta idin kala hadlo waxa weeye ardayga aan rabnaa inaan tilmaamno ardayga wanaagsan
ardayga wanaagsan ee fariidka ah ee wixii la saaray iyo waajibaadkiisii gudanaya waa arday sidee u eg hadii la idin dhiibo qalin oo la yiraahdo qof kasta oo arday fiican waxa uu taqaan qor qof kasta waa qoraya hatta qofka isleh adiga ma ahid qofkaas wuu yaqaanaa waxa ardayga fiican uu yahay qof kasta waa yaqaanaa meelaha la yimaado oo waxbarashadana waxa laga barto ma aha kaliya aqoonta taala laakiin waxa laga bartaa aqoon akhlaaq dhaqan wanaagsan asluub fiican mas'uuliyad wax badan baa laga bartaa marka ardayga intaano arday oo ma subax kasta